Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhawaada halkani waa Sahan Academy hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa introduction to research. Sidaan horey markaasi ogeysiisaan idin soo dhignay waxaan bilaabeynaa qaybo ama taxanayaal muuqaalo ah oo ku saabsan researchka maadaama arday badan markaasi marka ay qalin jabinayaan jaamacadaha ay ka qalin jabinayaan oo ay diyaarinayaan buugga qalin jabinta ay dhibaato badan ku qabaan diyaarinta buuggaasi. Waxaan markaasi halkan kusoo gudbin doonaa casharo taxanayaal ah kuwaasoo markaasi ku saabsan researchka ama cilmi baarista. Waxaan filaa in markaasi lala socon doono sidoo kale ardayda waan ka saacidi doonaa wixii markaasi caawimaad ah oo ku saabsan researchka. Haddii markaasi aad u baahan tahay caawimaad dheeraad ah oo ku saabsan researchka oo sida reportkii iyo data analysiskii iyo wixii markaasi la xiriira waxaad nagala soo xiriirtaa lambarka WhatsAppka ee markaasi halkaas kaga muuqdo. Qaybteeni koowaad ayaan markaasi gelaynaa aniga oo ah macalin Saciid Yuusuf Maxamed ayaan idin soo jeedin doona. Muuqaalkan ama cashirkan waxaan ku baran doonaa 3 qodob. Waa markaasi iska soo koobaynaa 3 qodob aan baran doono. Qodobka koowaad waxaan baran doonaa definition ama what is research, muxuu yahay research. Marka hore waxaan qeexi doonaa research waxa markaasi uu yahay. Then marka aan ka gudubno oo sectionkaas markaan ka gudubno waxaan u gudbaynaa sectionka labaad oo markaasi ah purpose and importance oo ah ujeedada iyo muhiimadda cilmi baaristu ay leedahay. Maxay tahay sababta cilmi baarista loo sameeyo ama muhiimadda ay leedahay cilmi baaris in la sameeya maxay tahay. Waxyaabaha aan ku qaadaa dhigi doono ayaan markaasi ayaa ka mid ah cashirkeena oo kan ah. Sidoo kale qaybta u dambeyso ama sectionka u dambeeyo waxaan ku baran doonaa characteristics marka astaamaha uu leeyahay good research cilmi baaris wanaagsan oo fiican astaamaha ay leedahay sidoo kale ayaduna waan markaasi ka hadli doonaa. Marka 3dan markaasi qodob ayaan cashirkan aan uga hadli doonaa. Waana base waana foundation 3dan qodob waa salka waaye oo markaasi researchka. 3dan haddii aadan fahamsanayn horey markaas uma socon kartid. Marka cashirada waxay u diyaarsan yihiin qaab yacni waxa waaye base ah from hoos in laga soo bilaabo oo markaasi kor markaasi loo sii socdo ugu dambeyn heer aan gaarno in markaasi practical oo markaasi aan halkan aan ku sameyno buug inaan diyaarino ama buug qalin jabinta oo research inaan halkan ka diyaarino inagoo markaasi sameynayno oo ma raacayno talaabooyinkii markaasi cashirada aan ku qaadanay oo kan uu ugu horeeyo. Aan ku hormarno sectionka koowaad. Sectionka koowaad wuxuu yahay waa definition of research. Cilmi baaristu maxay tahay? Aynu ku hormarno definition maxaa la yiraahdaa? Research maxaa la yiraahdaa? Research marka aan rabno inaan qeexno waa is a systematic and organizing process of collecting, analyzing and interpreting information to answer questions, solve problems and discover new knowledge. Research ama cilmi baaris waxaan ku qeexi karnaa oo waxaan leenahay waa systematic process waa hab nidaamsan sidoo kale hab oo organized ah oo habaysan. Habkaas oo of collecting lagu ururinayo, analyzing lagu taxliilinayo and interpreting lagu turjumayo information warbixin ayaa markaasi la collect gareyna then analyzing lagu sameyna. After that waxaa lagu sameynaa interpreting waa la turjuma. Sababta loo sameeyana waxay tahay to answer si ay uga jawaabto questions su'aalo la isweydiinayo oo cilmiga la xiriira ama solve ay u xaliso problems ama discover yani la helo new knowledge aqoon cusub oo dadka aysan ogeyn. Researchka waxaa loo sameeya waxay tahay 3 qodob markaasi ayaa markaasi laga kow su'aalo la isweydiinayo oo cilmi ku saabsan in ay ka jawaabto. 2 dhibaato jirta inay xaliso. 3 waxa waaye aqoon aan horey u jirin in markaas la soo saaro. Sidee markaas researchka loo sameeyaa? Researchka waxaa loo sameeyaa 3 qodob. Kow waxa waaye in xog la soo ururiyo marka ugu horeyso. Then xogtaas la analyze gareeyo. After that xogtaas ayaa waxaa lagu sameynaa interpreting. Marka 3dan qodob marka la sameeyo ayaa markaasi waxay markaasi ka soo baxayo 3dan qodob mid ka mid ah ayay markaasi xalinaysaa oo su'aal inay ka jawaabto problem inay xaliso
ama new knowledge in markaasi la helo. Waxaa jiro waxa la yidhaahdo qodobo markaasi muhiim ah ama key aspects oo 3 qodob ah oo qofka researcher-ka ah ama cilmi baaraha ah la rabo in markaasi niyadda uu ku hayo. Waa 4 qodob sorry. 4ta qodob, qodobka koowaad wuxuu yahay research-kan adiga aad diyaarinaysid marka hore waa inuu yahay systematic, waa inuu yahay mid nidaamsan oo markaasi raacaysa hannaan iyo sidoo kale hab nidaamsan oo abaabulan, yacni systematic ah oo waxa waaye tallaabo tallaabo markaasi loo maray. 2, research-kan adiga aad samaynaysid waa inuu yahay purposeful, waa inuu yahay waa mid ujeedo leh. Ujeedo leh waxaan ka wadnaa waa mid yacni yoolal laga leeyahay, yoolal yacni loo socdo, ujeedooyin yacni la rabo in la gaaro in markaasi ay leedahay. Qodobka saddexaad waxay tahay waa inuu yahay empirical. Empirical waxa waaye waa mid ku salaysan yacni caddayn. Wax walba aad samaynaysid waa inay ahaataa mid ku salaysan caddayn. Cilmi baaristaadu waa in markaasi ay ahaataa mid ku salaysan caddayn oo waa inay ku tiirsanaataa xog iyo waxyaabo la arki karo oo dadka ay fahmi karaan oo markaasi ay taaban karaan. Qodobka afaraad waxyaabaha muhiimka ah waxa waaye waa inay ahaataa replicable. Replicable maxaa waaye mid lagu celin karo oo maadaama aad si nidaamsan aad u martay markaasi nidaamaadkii aad martayna aad sheegtay, haddii qof uu ku celiyo waa in jawaabtii adiga aad soo saartay ama dhibaatadii adiga aad xalisay waa in markaasi ay xalisaa. Replicable inay tahay in lagu celin karo. Sidii adiga aad u samaysay qof kalena uu u samayn karo markaasi uu natiijada aad heshay isagana uu heli karo isaga oo raacayo tallaabooyinkii markaasi adiga aad martay. So marka waa introduction. Marka qodobadan ayaa marka ugu horeyso muhiim ay tahay. Research maxaa la yidhahdaa? Waxyaabaha muhiimka ay tahay marka la rabo research-na maxay markaas yihiin. So waxaan ka gudbaynaa section-ka koowaad, waxaan u gudbaynaa section-ka labaad oo markaasi ah purpose and importance of research. Waxa waaye ujeedada iyo muhiimadda research-ku uu leeyahay. Waa ujeedada loo sameeyaa research-ku maxay tahay? Si la mid ah muhiimadda research-ka uu leeyahay markaasi maxay tahay? Ujeedada iyo muhiimadda cilmi baarista. Ujeedooyinka way badan yihiin. Waxa ugu muhiimsan in markaasi la sameeyo expand knowledge, ballaarinta aqoonta. Yacni waxay kordhinaysaa kaydka aqoonta aadanaha. Sidoo kale waxay buuxinaysaa meelaha uu fahamku ka maqan yahay oo dadka waxyaabaha aysan fahamsanayn. Marka cilmi baaristaada ay helaan waxa waaye waxay ka saacidaysaa waxyaabo si khaldan ay u fahamsanaayeen in yacni waxa waaye markaasi ay saxdo oo cilmi baaristaada ay saxdo. Ujeedada labaad ama muhiimadda labaad ee cilmi baaristu ay leedahay waxa waaye waa solve problems. Waxay xalisaa ama xalinta dhibaatooyinka. Sideedaba cilmi baarista waxa ay soo saartaa xalal markaasi wax ku ool ah oo loogu talagalay caqabadaha bulshada haysta, sidoo kale caqabadaha cilmiga la xiriira, caqabadaha tiknoolajiyadda la xiriira. Intuba waxa waaye cilmi baaris marka la sameeyo, cilmi baarista ayay xalinayso. Hadafka saddexaad ama ujeedka saddexaad waxa markaasi uu yahay inform policy oo markaasi ah hagidda siyaasadda. Oo sideedaba cilmi baarista waxay bixinaysaa xog iyo caddayn lagu saleynayo go'aan qaadashada ay qaataan dowladaha iyo hay-adaha iyo shakhsiyaadkaba. Go'aamada ay qaataan waxay ku saleeyaan cilmi baaris. Qodobka afaraad wuxuu yahay drive innovation. Cilmi baarista ujeedooyinka markaasi laga leeyahay ama muhiimadda cilmi baaristu ay leedahay waxaa ka mid ah horumarinta hal abuurka. Waa drive innovation. Cilmi baaristu waxay markaasi dhiirigelinaysaa horumar tiknoolajiyad in la sameeyo. Sidoo kale abuuridda wax soo saarka cusub si la mid ah tayeynta nolosha ama quality of life. Cilmi baarista ayaa markaasi door weyn ka qaadanaysa. Qodobka shanaad hadafka iyo muhiimadda cilmi baaristu ay leedahay waxa waaye waa verify claims. Yacni waxa waaye in la xaqiijiyo sheegashooyinka. Qofka tusaale wuxuu dhahay cilmi baarista waxaasaan ka sameeyey natiijada aan helay waxay xalisay problemka. So marka adiga laftirkaaga inaad cilmi baaris aad samayso then verify claims waxyaaba la sheeganayo in yacni waxa waaye ay xaqiijiso. Cilmi baaristu sideedaba waxay tijaabisaa fikradaha ay dadku qabaan. Sidoo kale waxay ka hortagtaa waxyaabaha markaasi mala awaalka ah. Si la mid ah waxay xaqiijisaa ama u diidaa aragtiyo jiro, aragtiyo horey u jiray
aragtidaas qofkaas u qabay ay xaqiijinaysaa ama waa markaasi ay waa refusal ay diidaysaa. qodobka u dambeeya ujeedooyinka iyo sidoo kale muhiimadda cilmi baaris ay leedahay waxa waaye enable prediction, saadaalinta mustaqbalka in la saadaaliyo. cilmi baarista sideedaba waxay markaasi aqoonsataa qaabab isbedelo lagu saadaalin karo dhacdooyinka iyo dhaqamada mustaqbalka dhici karo in prediction lagu sameeyo ayada ayaa markaas saadaalinaysa. Marka these waxay yihiin waa purpose and importance of research. waa 6 qodob ayaan kusoo koobnay, waana sectionka labaad. waxaan u gudbaynaa sectionka saddexaad oo markaasi ah characteristics of a good research. cilmi baarista wanaagsan astaamaha ay leedahay, astaamaha ay gaar kala tahay. waxaa ka mid ah astaamaha ay cilmi baarista wanaagsan ay leedahay. horta kow waxa waaye, waana qodobka ugu muhiimsan, waa clear purpose. waxay leedahay yani waxa waaye ujeedo cad ay leedahay. cilmi baaristu sideedaba waxay leedahay yoolal iyo su'aalo cilmiyeed oo si wanaagsan loo qeexay ayaga oo markaasi hagaya daraasadda oo dhan. su'aalahaas ama purpose-kaas ama ujeedadaas ayaa waxay ka jawaabayaan ama loo diyaariya isla ayagii su'aal ahaana loo diyaariyaa. su'aalahaas ayaa cilmi baaristu ay ka jawaab. so marka purpose waa inay leedahay. qodobka labaad waxa waaye waa inay tahay mid yani waxa waaye characteristicska oo good research ku leeyahay waxa waaye waa inay leedahay objectivity, yani mid markaasi dhexdhexaadnimo leh. oo cilmi baarista natiijada markaasi ay samayso waxay tahay mid yani aragtiyo markaasi ku salaysan oo aragtidaada ay ku salaysan tahay. qodobka saddexaad waa inay tahay validity and reliability. cilmi baaristaadu waa inay tahay mid sax ah, sidoo kale reliability mid la isku haleyn karo oo ay go'aamo ku qaadan karaan dowladaha iyo hay-adaha ay go'aamo ku qaadan karaan. so marka waxyaabo oo macnaheedu waxa waaye mala awaala aadan kusoo darin, wax walbo waa in yani waxa waaye aad ku salaysaa evidence, daliil waa inaad ku salaysaa. qodobka afaraad astaamaha good research uu leeyahay waxa waaye rigorous methodology ay markaasi leedahay, oo markaasi ah habraac adag oo markaasi marka la sameynayo researchkaaga markaa sameynaysid habraac oo waxay leedahay oo adag oo qofka haddii markaasi dib uu sameynayo yani waxa waaye waqti badan iyo shaqo badan ay markaasi ku qaadanayso. waxay leedahay ama researchka fiican wuxuu leeyahay habab ku habboon iyagoo markaasi si taxadar leh loo dooranayo loona adeegsanayo si loo xaqiijiyo cilmi baaristaada sax ahaanshiheeda. cilmi baarista characteristics ay leedahay waxaa ka mid ah documentary thawli inay leedahay. waa in markaasi ay tahay mid maxay documenti ahaan yani waxa waaye ay tahay mid yani dhammaystiran. marka laga hadlayo habraacyada iyo natiijooyinka si faahfaahsan loo diiwaan geliyo waxay noqon karaan kuwa markaasi lasoo celin karo. ugu dambeyn ujeedka ama aan dhaho astaamaha oo cilmi baarista wanaagsan ay leedahay waxa waaye waa ethical standards ay leedahay, anshax cilmiyeed ay leedahay. anshax cilmiyeeda jiro oo research marka la sameynayo waxyaaba waxaa jiro ethics waana qaadan doonaa. cilmi baaristu waxay ilaalisaa xuquuqda, sidoo kale asturnaanta. si lamid ah waxay markaas cilmi baaristu ilaalisaa badqabka ka qaybgalayaasha iyada oo dadka markaasi cilmi baaristaada markaasi haddii dad ay dhibaato kasoo gaarto cilmi baaristaada so marka ma aha good research ma aha. marka researchka sidiisaba waa foundation for knowledge way, waa aasaaska aqoonta waay. inta ayaan kusoo gabagabeyneynaa cashirkeenii koowaad ama muuqaalkeenii koowaad ee ku saabsanaa researchka. intaynu ku kulmi doono muuqaal lamid ah muuqaalkan waa anigoo macalin Saciid Yuusuf Maxmed oo idinkaga tegaya siday nabadiino. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.